gabdhaha Soomaaliyeed qaab ceenkeeba xuquuqdooda ay u helaan dhaqan ahaan diin ahaan iyo dadnimo ahaanba intaba waa hagaag waa filayaa inaad barnaamijka si fiican aad waxa weeye aad nagala qayb qaadan doontaan aan ku celiyo gabdhaha Soomaaliyeed ma helaan xuquuqda xaqa ay ku leeyihiin reerka ma helaan waxbarasho ma helaan daryeel iyo inkasta oo wax walba oo ay u baahan tahay gabari ma heshaa intaba dooda ay ku saabsan tahay qadadka telefoonada ayaad nugula soo xiriiri doontaan waa tahay sida haddaba aynu la soconno xuseeno cilmiga dhaxalka waxa weeyaan waa fiqiga dhaxalka iyo garashada xisaabta waa dhaxalku waa waxa weeye waa fiqi ahaan diiniya marka la yidhaahdo waana garashada xisaabta in waxa weeye la kala ogaado waxa markaasi qof kasta uu leeyahay taasoo markaa ku suurto gelaysa garashada mid kastoo wax dhexlaya waxa uu xaq u yeeshay cilmigan dhaxalka waxa uu leeyahay fadli weyn buu leeyahay haddii arrintaas la dhaqan geliyo waxaana si aad ah loogu faahfaahiyey kitaabka suuratu nisaaba aad u faahfaahisa iyo sunnaha nabiga lagu faafiyey oo nabigeena maxamed nabadgelyo waxaynu ognahay in cilmiga markaa dhaxalku uu ahaa saxaabada cilmigooda kii ugu weynaa xilligaas doodahooda ay markaasi inta badan ay ka doolow aan kaa dhexgale xigmadda dhaxalka Soomaalida ama dhaqanka diinta islaamka wuxuu aad ugu hiiliyey gabdhaha sababtu waxay tahay marka la yidhaahdo oo saddex dhig bay leedahay gabadha laba dhigna wiilka iska leh xigmad baa ka dambaysa oo rabbaaniya waa tahay halka xubin oo ay iyadu leedahay jeebka inay gashato waxay ku leedahay masaariif iyo nolol haddaysan nin guursanin walaalkeed hadduu aabbaheed dhintay xaqa waxay ku leedahay walaalkeed jeebka iyadoo ku haysata saamigii ay qaadato oo halka ahaa xubin ilaa ay ka guursanayso way haysanaysaa waxay cunto iyo arad iyo intaba ku leedahay walaalkeed oo mas-uulka ka ah adaba meesha xuseenow layska qabanaya waa halkaa imka aad taabatay oo dhaqankiina dhan uu ka jiidanayo diintiina waxa weeye magaranaysaa ay dhan ka tahay meesha waxa weeye sartu ay ka qursantay halkaa weeye way haysanaysaa waxeedii soo maa waxeeda way haysanaysaa waxay wax ku leedahay oo mas-uul ka ah walaalkeed oo ka weyn marka ay guursato xilka waa ka wareegay walaalkeed wuxuu u wareegay ninka guursada hadday doonto ha siiso jacayl ha siiso kahelid waa halkeeda laakiin halka xubin oo ay leedahay xigmadda ka dambaysa waxay tahay wiilka laba waxaa looga dhigay ilaa ay ka guursanayso inuu asaga mas-uul ka yahay waa hagaag dhaxalku waa lahaanshaha hantida qof ka dhintay uu lahaa haddii si kale u dhigno laakiin hal cilad baa jirta goolow halka ciladoo jirta waxay tahay gabdhaha Soomaaliyeed gaar ahaan dhaqan ahaan ma helaan waxbarasho inta badan waxay ku jiraan dabka si ay wiilasha cunto ugu kariso iyadoo dhanba reerka ay ugu shaqaynaysaa casri jaahiligii bay ahayd laakiin beryahan dambe isbeddel ay yimid gabdhihii waxbarashada aad bay ugu soo tiro bateen magaalada Muqdisho iyo Nairobiba haddaad tiraahdid tirada ugu badan ee waxbarata waxay yihiin gabdha Soomaaliyeed waayadii hore caburin baa jirtay naa adigu waxba ma taraysay beritoole xaas baa noqonaysaa reer baa dhaqanaysaaye wiilasha cuntada igu kari waxba iskuul ha aadinay that's waxay keentay in gabdhihii ay noqdaan gabdho reer baadiye ah oo aan waxba baran taasoo ku salaysan dhaqanka Soomaaliyeed midda xigta cadaadis wuxuu ka saarnaa dhinaca hantida dadka maaragta hantida qoyska gabadha waxba kuma leh inta aabbaheed uu nool yahay qoyska waxba kuma leh iyadaa lacag laga rabaa laakiin wiilka 100 halaadaa laga bixinayaa si uu gabar u helo laakiin iyada waa beec waa la gadayaa mid baad sheegtay anaa waxa weeye aan kaa dhex gala sheekada waxaa tiri gabadha
wiilka ayaa waxa weye dabka ay u gashaa si wax u barto ha waa markay dabka waxa weye markay qaanga iyadoo yar bay bilowdaa soo maa Yes. ilaa inta laga gursanayo waxay ku ilaa jirtaa dabka. dabkay ku jiraysaa waa hagaag halkaas waxay ku leedahay xuquuq waa kow waxaa kaloo hadda aad sheegtay gabadha haddana waa lasii gadaya iyadoo intaa xuquuq leh haddana lasii gadaya waa la iibinayaa waa reerkii eegd waa reerkii family boqol halaadaa laga rabaa iyo qori iyo faras baa laga rabaa intaana waxa weeye dabkay ugu jirtay dabkay ku laba jirtay xuquuq. haddana waa la iibinayaa waa xuquuqda meel looga dhacay gabdhaha haddana soomaaliya waxa weeye dhaxalkii markii ay yimaadaan waxa leeyahay dooqeeda ma ciyaari karto waa saddex waa nin gool oo duqa oo yimid ama oto oo duqa ama anigoo oday oo waayeela oo hadda at least da'deed inaan sheega ma rabe shan laatan bilaa kuu dhan shan laatan aan doonto oo idhaahdo boqol halaada gabadha ka bixinaya oo la bixiyo oo qori iyo faras lacag laga qaado ha lacag laga qaado gabadhi laysiiyo Ah. anigu gabadhi ma kaafin karo gabadha waa gabar da'yar Lugtuna- waxay u baahan tahay Ah. jaalkeeda iyo jiilkeeda inay la ciyaarto anigoo 60 jira ma ila ciyaari karto aan ku xasuusiyo waxaan filaya hadii waxaa taaganta xilligii qolyaha waxa la yidhi reer muduga yaa markay saasoo kale gabadhu soo guursadaan yaa waxa weeye si ay ula joogaan bee lugtay saari baa la yidhi mohta gabadha markaasa waxa weeye quraacda halkaas lugtaasa quraacda loogu karin marka lugta waa yeel maya waxaan ujeedada waa saray gabadhu Waa saafadhi. waxay ku wanaagsan tahay inay jiilkeeda la ciyaar. jaan qaado jinkaaga la ciyaar Yes. waayahay saddex xuquuqood baa markaa gabadhi meesha ka maqan dhaqankii ma u hiiliye mise kama hiilin infacti dhaqanka soomaaliyeed gabdhaha bakeri hadday dhulka ku dhufato naahan naga jibin bakeriyaashaadu meel bay yaalaan Aha. baa laleeyahy talooyinka ma ka qayb galaan talada gabar tale waxba kuma leh dhaqanka soomaaliyeed maxaa waa dhacay meesha Ah. abuuska ama cadaadinta uga ay kaga timaado halka. gabdhaha soomaaliyeed waa halkaas hadday hadasho go-aan male talo waxba kuma leh ilaa laga guursanayo ay boqol halaad soo xarayso waxba kama aha qoyska aanku ku xasuusiyo gabadh waxaa jirtay 5 wiil lahayd hantina ilaahay siiyey runtii kamay qayb geli jirin markaa doodaha geedka marka laisugu yimaado laakiinse markii odaygii dhintay iyadii ay meeshii joogto xantina ay lahayd gartii waxa weeye waa laga soo qayb geliyey laakiinse gartii way fadhiday oo way dhegeysanaysay markay hadlayso waxay laakiinse ay xaq u lahayd inay waxa weeye codkeeda la dhegeysto laakiinse waxaa waajib ahayd inay tidhaahdo anigu kolley talada idinkeeda ka godaamay iyay lahaysaa aniga saasay ilahayd iyay la tay talada laakiinse idinkaa le bay leedahay waayo dhaqanku u heli caburin buy meeshaas Ma- iyada codkeeda ma banaanka ma dhigi karto Ah. haddaba dadweynaha waxa aan ka doodnay aragtidooda ha naga soo dhiibtaan dad badan baa waxa weeye ayaan filay arrinta inay haysato haye gohead aye waayahay dhegeystayaasha khadkii telefoonka ugu horreeya baan ka qabanaya xuseen asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa yahay magacaagaad noogu bilaabaysaa meeshaad joogtaad noo sheegaysaa da-daad noo sheegaysaa kadib baad hore u gelaysaa magaceyga waxaan jooga ifo haye magaceyga waa ibraahim haye haddaan ugu galo banaadka da-daadana yaa da-da imse jir baa tay anaa haa 20 meelaha waaw haye hore u soco waa nin weyn waa uu qaangaar wey haye haddaan ugu galo barnaamijka waxaan dhaarowga xuquuq mala siiyo magaca muxuu ku sheegay codkana si ibraahim codkaaga ibraahim meeqa gabdhood ayaa kula dhalatay anaa afar afar meeqa cunto kuu karisay way kaa waawen yihin mise kaa yaryihin laba ii yarbis inta kale waa kaa weyihiin dabka ma kugu jiraan mise adaa wax karsada waxa dabka mar sankeebol mar qofa wax kariya waxbarasho ma aadan gabdhaha waa aadaan iskuul iyo madrasa dhigtaan anaga dhan waan dhaana haye laakiin waktigii hore iyagaa cuntada idii karin jiro hooyo dabka ka xigsanaya soo maa qofaa wax karinayo hadday u kariyaan be
goormay wax akhrisanaysaa marka gabadha haddii ay iskuul aado ay duruus badan soo qaadato ayna kaa weynta goormay wax baranaysaa marka aabiyo hooyo manooliyin ibraahim u mahadsan yahay wuxuu noo xaqiijiyey in gabdho ka waaweyn yihiin gabdhana ka yareerin cuntadana ilaa hadda loo kariyo waa tahay su-aasha adaan toos ku weydiinaya aabiyo hooyo manooliyin aniga alla yaraxma waa hagaag hanti waa ka tegeen maxaa see u qaybsa weliya gabdho waa hal gabaraa nala dhalatay afarta kale waa wiilal waaye laakiin inta badan soomaalida markay dhaxal qaybsanayaan waxay u tagaan inta badan shiikh soomaaliyeed oo yaqaano fiqiga xaqa okay ma la fuliye wuxuu markaa xukumay wuxuu fuliyo wuxuu go-aamiyo waa la fuliya fulinta muhiima guriga aabe wuxuu ka tegay hal guriga haddii uu yahay 1,000,000 oo aniga iyo gabar bes aan nahay 1,000,000 3 u qaybi 2 anaa iska leh 1 gabadhaa iska leh diinta islaamkaana faraysa haddii waa la fuli waayahay aad baa waxa weye waanu eegi doonaa aayadaha markaasi dhaxalka ka hadlaya waa ay fara badan yihiin oto dheere waxaa ka mid a suuratu nisa lambarada ama aayadda 11 12 176 isla suuradaasi waa hagaag dad fara badan way ka cabadayaan qaadiga haddaad u tagto xafiiska gabdho badan oo ooyaya oo dhexda farta ka qanisan oo guryo sababta aan kuu sheego qaadiyada ayaa waxay sameeyaan khilaaf haye wadaadada diinta yaqaana ee kitaabka ku xukminaya waxay mariyaan waddadiisa laakiin qaaliyadan waxaa la leeyahay intaanaan ku siinayaa gabadhan naga afduub horoo ka afduuba waa hagaag laakiinse soo aragti kaleo waxaa jirta sheegaysa gabadhii gurigoodii markay joogto waa la guursanayaa nin bay guursanaysaa hantidii marka halkan ay ka heshay xagga ay la tegaysaa ninka waxaa laga yaabaa in waxa weeye halkaa uu ku darsado marka wiilkii isaga xoolaa laga rabaa markuu guursanayo laakiinse xoolaa lagu darayaa marka taasi maynan markaasi noqonayn maadaama waxa weye gabadhii iyada xoolo lagu guursanayo wiilkii xoolo laga rabo in wiilkii mar kasta waxa weeye la siiyo mudnaanta maya wiilka wuxuu leeyahay labo uu leeyahay laakiin gabadha waxay leedahay 3 dhig markii loo dhigo halay leedahay gabadha 2 kale wiilkaa iskale xikmadda ugu sarraysa ee diinta islaamku ay sheegaysana waxaa ka mid a in gabadha mas-uul laga yahay ilaa ay ka aroosayso waan gartay waa sax marka ma aha gabadha xuquuqdeeda lagu tumanaa ma aha way ka xuquuq badan tahay wiilka sababta waxay tahay 2 marka wiilka la siiyey iyadana mid la siiyey waxayna jeebkii ku haysanaya wiilka labadiisa la cunaysa